salaada habeenkii la tukado idan waxaynu arkaynaa in dunida la bedelo culayska ay leedahay waxa kaa fudaydin kara ee abuuri kara inaad dunida tan dhibta kaaga imanayso dhamma ay fududaataa waa xidhiidhkaada la leeday inta uu xooggan yahay waa salaad inta aad tukanayso sida awgeed ayaa nebiga markay dhibtu ku adkaatay haddana waxaa la faray tasbiixdiiyo salaadda inuu badiyo waa markay dhibtu ku adkaato markii la yidhi fasdac bima tu'mar waacrid can ilmushrik ku dhawaaq baa ilahay yidhi wixii lagu faray qoladan gaaleed ee ilaahay dafirtay iyo kuwan mustahziyiinta iyo waxaasoo dhan kaaga filan ilaahay wuxuu leeyahay walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun waa ognay baa ilaahay yidhi in laabtaadu inay cidhiidhiyami doonto waxay kugula hadlayaan dhib baa kaala kulmi doonta laakiin maxaa xala fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin baa lagu yidhi tasbiix iyo taxmiid la kaalay inta sujuudana ka mid noqo idan mashaakilka adduuniya culayskeeda haddaad rabto inaad ilowdo haddaad rabto inay kaa dulqaadanto albaabka rabbi garaac baa la leeyahay wax kaloo dhan ha qabanay dikrigiisa badi salaadiisa badi cibaadadaa badi sawgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ina leeyahay ma nebigoo qudha maya waa dhammaan yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biالصabri والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين لبدا آيات سورة البقرة كجرا إلهي وحلي كوة إيمانك لغا هلايو dhibtu markay idinku timaado waxaad kaalmaysataan sabir iyo salaad baa la tilmaamaya idan waa manfac dunawiya waa min maqaasidda aynu salaada u tukanaynaa waxaa ka mida baynu leenahay markaasi inaynu nolosha adduuniyo ay inoo fudaydiso in culaysku inaga dego inay dunidu problem inagu haynin in wax allaaliya wixii kaa hor yimaada waay aanay kugu haynayn dee man biyadihi malakuutu samaawaati waalardi baad ku xidhanta ciday gacantiisa ku jirto adduunkan cir iyo dhulba allaha maamula ee kun fayakuun wixiisu yahay ayaad hor taagan tahay waa ciddi qudha ee wuxuu amraa ay socdaan wuxuu reebaana aanay imanaynin sida awgeed ayuu nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam xudayfa xadiidkiisii xasanka ahaa waa kale idaa xasabahu amrun fasca ila asalaa nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii waxbaba warwargeliyaan u fiirso siduu nebigu u fahmay wixii alla faray innaga haddii waxayna warwargeliyaan maxaynu idhaahnaa bal tolka u tag bal aw hebel u tag bal taajir hebel u tag marka waxa dhibu ku qabsato ama mashkaladu ku qabsato waxa koowaad adigu aad ka fakartaa makhluuqaadkay u badan yihiin ciddii aad leedahay in kugu ag xeerana aad leedahay waxbay qaban kartaa manhi ma aha inaad bini aadamka kaalmo weydiisato laakiin waxaa ka muhiimsan inaad marka hore albaabka ilaahay garaacday waxaa ka muhiimsan nolosha wax kastoo kugu cuslaada inaad xagga rabbi ula kacdid walidaalika baa nebigu calayhi salaatu wasalaam qadiyadda intuu fahmay oo ku dhaqmay ayaa wuxuu saxaabigaasi ka warinaya uu leeyahay idaa xasabahu amr haddii waxbaba warwargeliyaan fazaca ila asalaa xagga salaadda ayuu u carari jiray ilaa xadiidka taqaana arixna biha yaa bilaal ama uu ku tilmaamayay quratu caynihi inay tay waxa ishiisu ku doogsato idan waxaynu leenahay salaadda ajar waa ku raadinaynaa waa dhab dembiga maydha ajar baa lagu helaa jannaa lagu galaa qiyaamaha marka la tago waa waxa ugu horreeya la isku xisaabo hadday wanaagsanaato jannadaad hore kaga waxaasoo dhan waynu haynaa oo janno iyo aakhiro ku saabsan laakiin waxaan ka warramaynaa waa maxay waa manaafic dunawiya waxaan ka warramaynaa waxa weeyaan cibaadada ma aakhiraynu la sugaynaa mise adduunkay faa'iido leedahay waxa weeyaan adduunkay faa'iido leedahay adduunkay dhaqankaaga beddelaysaa
علماء التربية علماء السلوك waxay ku takhasuseen oo dhami waa in la bedelo dhaqanka qofka bini aadamka ah hadaad rabto dhaqankaaga inaad bedeshid salaadaadu ha xoogaysato salaadaadu ha qurux badato salaadaadu ha tiro badato salaadaadu tii nabiga hoo kaatay calayhi salaatu wasalaam taasi waxa ay sababaysaa isbedel nololeed inuu dhaco ah halaaliyo waxa sulukiyaadkaaga inay wanaag noqon karaan idan waxaan leenahay waa manfac dunawiya intaan manfaca aakhire la gaadhin waxaan leenahay zakadu